السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمي شرف كله كحرا جنالكا شرد تي في مالي وناكسن كنا سو دوادا موقال عصب Dahan murugyo harad mudane mantai urato matana eshe almalo ashe damantete nagawdo andadi wala marise almalo ashe namantete موقال كان عصب وموقال مهم وقف والباء الصومالية إنه لكت أتاجوا أي مدنتها عنا كجهد لدونا سدا أي دولة دينا الصومالي وجود يا رجروبي سو دعوة حدود بداتك أي كل جرتو ودنك كينيا سدا كلا وحاول موقال كان حمبارسين هاي إن لو داجنو تاريخ ذا يعد أيهين قرنا ذا مثليا دولة دينا الصومالية bishan September 9keeda dalkeena Soomaaliya waxa uu dood iyo difaac la hortagi doonaa maxkamadda loogu yeero tan cadliga adduunka ee ku taala wadanka Holland qareenada u doodaya Soomaaliya ayaa difaaci doona dacwadda badda ee Soomaaliya iyo in Kenya ay ku soo xadgudubtay baddeena halka jawaabta Kenya ay isla maxkamaddaasi dhageysan doonto 2 maalin kadib oo ah 11ka September 2019 inta aanan u gudbin salka iyo ujeedka doodan cusub ee loo balansan yahay bishan waxaa xusid mudan in horey Kenya looga adkaaday kadib markii ay diiday maxkamadda loogu yeero midda cadliga codsigii Nairobi ee ahaa in labada wadan ay wada hadal galaan maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya haddaba doodan cusub ee 9ka bishan ka bilaabanaysa wadanka Holland waa kiiska dhabta ah ee muranka xadka ee badda qariirado ayaa la soo baxaya labada dhinac qareenada Soomaaliya difaacaya waxa ay meesha la tagi doonaan cadeymaha xadgudubka ay Kenya ku sameysay dhulbadeedka Soomaaliya dhulkan oo baaxadda uu ku fadhiyo gaaraya ilaa iyo 100,000 kiiloomitir isku wareeg ah meelaha ugu muhiimsan ee biyo dhaca dooda waxaa ka mid ah Soomaaliya waxa ay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dhiriyo xariiqda toosan ee ka timid dhulka xadka ee Soomaaliya iyo Kenya halka Kenya ay doonayso in xariiqda la weeciyo inkastoo Kenya ay sheegtay in dhulbadeedka muranka ay gelisay ay maraakiib ku baartay ilaalana ka ahayd muddo dheer laakiin waxaa la ogaaday in dhaqdhaqaaqa uu ahaa sanadkii 2014 dhammaan qariirada la hayo ilaa iyo gumeystihii waxa ay cadeynaysaa in dhulkaasi badda ah ay leedahay ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1952 waxaa mar walba soo baxaya cabiro iyo sharciyo kala duwan oo lagu badbaadinayo dhulbadeedka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan biyo goboleedka waxa afka qalaad lagu yiraahdo Territorial Sea aaga dhaqaalaha EEZ iyo qalfoofka qaaradeed Continental Shelf ilaa High Sea kuwaas oo ahaa 1958 ilaa 1982 waxaa kale oo jiray xeerar soo baxay 1969 1977 iyo 1982 kuwaas oo qeexaya xuduudeena dhulka biyaha ciidda iyo sidoo kale xitaa aaga xorta ah marka laga soo tago qareenada caalamiga ah kiiskan badda waxaa 10 sano la soo dhaafay ka shaqeynaya arintan khubaro Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeday sidii loo heli lahaa dhammaan cadeymaha ay Soomaaliya u baahan tahay si ay u hesho xuquuqdeeda badda waxaa la hayaa dhammaan qariiradaha heshiisyadii iyo sharciyadii ay galeen labada dal iyo xitaa sidii la ahaa xilligii gumeystaha ee Angelo Italian taasi oo keentay in qareenada ajaanibta ee Soomaaliya garabkeeda taagan uu qalbigooda ku dagay inay guuleysan doonaan haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa kuwee qareenada difaacaya Soomaaliya qareenada difaacaya dacwadda badda ee Soomaaliya 9ka bishan waa 3 qareen oo u kala dhashay wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska waxa ayna ka socdaan shirkadda lawyerada caalamiga ah ee Foleyhawk shakhsiga koowaad waa Paul Regler waa abukaati caalami ah oo fadhigiisu yahay magaalada Washington DC ee wadanka Mareykanka kana soo baxay Harvard Law School 1973 iyo jaamacadda Tufts 1969 waxaana uu ku hadlaa luqadaha Spanish iyo English Professor Philip Sanders ayaa ahaa qofka labaad waa 58 jir fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ah ee London waxaana uu wax ka bartay Harvard Law School iyo Corpus Christi College sidoo kale waxa uu wax ka dhigaa University College London iyo jaamacado kale oo Mareykanka Canada Faransiiska iyo Australia ku yaala qofka saddexaad waa Professor Alian Pellet waa 72 jir
waa abukaata Faransiis ah waxa uu wax ka dhigaa University de Paris waxaana uu in badan la taliyo ahaa dowladda Faransiiska waxaana uu wax ku bartay isla magaalada Paris saddexdan qareen ee Soomaaliya u matali doona dacwadda badda waxa ay horay ugu guuleysteen dacwado badan heleen abaalmarin caalami ah waxa ay caan ka yihiin maxkamadda caalamiga ah waxa ay guubaan guusha 100% danjiraha Soomaaliya ee Belgium Netherlands iyo Luxembourg iyo sidoo kale midowga Yurub علي سعيد فقي oo ka tirsan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka kiiskan oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in Soomaaliya ay 100% diyaar u tahay dooda dacwadda badda isagoo intaas raaciyay inay jiraan laba sabab oo ku tusinaysa in Soomaaliya ay guusha raaci doonto durba qeelan ayaa ka soo yeeraysa Kenya tan iyo markii ay Soomaaliya dacwadda geysay maxkamadda Hague waxa ay bilowday dadaallo ay ku doonayso inay wada hadallo kula furto dowladda Soomaaliya iyo in maxkamadda la iska daayo waxay adeegsatay diblomaasiyad cadaadis iyo wax walba laakiin dowladda Soomaaliya dhagjilaq uma siin oo dacwadda ay sii waday taasi oo cadeen u ah xabsida iyo kalsooni darrada ka muuqata dowladda Kenya dhinaca kale bulshada Soomaaliyeed waxa farxad u ah in abukaatayaasha Soomaaliya u doodaya ka socda hay'adda Fully Hawk ay yihiin kuwa looga bartay inay guuleystaan 100% waxaana ay ku guuleysteen dhammaan kiisaskii ay ka qabteen maxkamadda cadliga loogu yeero ee Hague shacabka Soomaaliyeed ayaa dhammaan ku midaysan in la soo dhiciyo xuquuqda badda isla markaana aan laga tanaasulin hal taako oo dhulka ah dacwadan oo go'aankeeda la soo saari doono 6 bil kadib ayaa la rajeynayaa inay noqoto mid ka farxisa dhammaan ummadda Soomaaliyeed International Court of Justice ICJ waxaa la dhisay 1945 waxay uga duwan tahay maxkamadda dambiyada dagaalka maxkamadan waa hay'ad garsoor oo qaramada midoobay hoos timaada xarunteeda waxay ku taalaa Den Haag oo ah magaalo ku taala galbeedka waddanka Holland waxa ay fiirisaa ama dhageysataa eedaha iyo codsiyada ay soo gudbiyeen dowladaha